Hagaasku waa meerto taban oo dabiici ah. Jiraalku waxa uu leeyahay tilmaamo asal ah oo nolosha oo dhan ku wada astaysan. Sida uu geedku u dhasho, u hana qaado, una harjado, ee uu isugu dayo inuu cunnadiisa samaysto, biyihiisa kaydsado, hawadana uga nuugo caleemaha baarka lulaya ee neecawda u soo gudbinaya. Hannaankaasi waa midaan geedka oo qura ku ekayn. Waa asal, waana tabta ay noloshu leedahay oo xataa aadmigu ula falgalo waayaha uu joogo. Inkasta oo aadmigu yahay noole tamar xun oo haddana anafa badan, geedku waa uu hagaasaa. Waa qodobkan ka aan u socdo. Hagaasku waa meerto sugaysa oo dadaalka wiiqaysa. Iskeed uma xuma oo waa hannaan nolosha ka mid ah. Geedku waa uu hagaasaa si uu u jiro. Waa inuu gaboobo. Waa inuu xarku laamihiisa dhumucda weyn bolol ka dhigto. Maxaa yeelay wax kasta oo nool waa ay hagaasaan. Haddii uu yahay hagaas bilow ah oo carcar u sii yeelaya noolaha uu ku dhaco, ama ha noqdo mid geeri horseeda oo walaxda uu haleelo idleeya. Hagaag, taasi waa saamaynta muuqata ee hannaanka jiraalku walaxda iyo noolaha u tabaaleeyo. Sidaasoo kale waxaa jirta inuu hannaankaasi leeyahay tabaan muuqanayn oo uu ula falgalo. Waxaa jira hagaas aan la arkayn oo taabta waxyaalaha aan ishu qaban, balse aragti iyo dareen ahaan u abuuran ee ay dadku faalleeyaan, sida niyadda, dareenka, kiisa kalgacaylka ah, nacaybka, fakarka iyo malawaalka hodanka ah oo dhacda inuu hagaaso. Waxaa raacda inuu fakarku hagaaso sida uu u hodmo. Run ahaantii waa la dhayalsadaa inuu fakarku yahay xaalad dhalad ah oo nolosheenna aan ku maarayno. Waxaase laga yaabaa inaan cidla ka walwalayo oo ay arrintani baraaru ku filan leedahay. Fakarka toolmoon waa yididiila hiraysa oo uu ruuxu sahaysanayo intaasoo uu fiirinayo. Goorta ilayskaas la waayo ayayse guuldarradu bilaabataa, waxaana uu qofku u wiiqmayaa si aad u daran oo karti dheeri ah u baahan si uu u kabto. Sidaas awgeed waxa uu walbahaar iga hayaa inta uu fikirka wanaagsani noolaan karo. Ogow oo haddii uu dhinto waa aan maaxdumaynaa. Himiladuna sidii galmiir ah ayay u guraysaa. Aayar ayaad maalinba waayaysaa.